muhiimaddu ma ahayn in madaxweyne la bedelo madaxweyne kala yimaado laakiin muhiimadda aan lahayn waxay ahayd madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni inuu madaxweynaha federaalka inuu noqdo ahayd sababtaas oo ahayna waxay ahayd waxaan wadnay qorshayaal iyo siyaasad aragti leh oo aan rabnay dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya inuu soo dadejinayo marka cirbad kululeysan ku dhufan lahayn siyaasadda Soomaaliya nasiib daradana eedeeda waxba aan ka warwareegine xildhibaanadeennii baa iska lahaa tendhadan soo fariisanay qalay waraaqa qaadana codkaas aan tirsaneen wuxuu Ilaahay naga siiyo go'aanka marka ninka xildhibaanka iyo gabadha xildhibaanada iska leh iyaga meesha galay qalinkooda iyaga wata cid u xariiqan waay annaga marka waxaan ku xisaabtamaynay 89 inaan ka hooseynin wareegga koowaad inaan hogaamino waa aragteen oo madaxweynihii fadhiyaan ka hormarnay laakiin codadkii aan maleynaynay iyo wixii aan maleynaynay ma dhicin dad badan oo lagu tashanayay baa nala tala ahayn halkaas marka horta wareegga koowaad annagoo faraxsan oo baasha hogaaminayna soo baxnay scenarioska meesha ciladu ka imaan karto haddii codadkeenu wareegga koowaad ay yaraadaan in scenario nala challenge gareyn karo oo naloo soo dhawaan karo oo la isku keen kaashan karo la isku keen bahaysan karo waa noo muuqanaysay meeshaan xalka u arkeynay baa marka anagu taageernay xalkii wuxuu noqday isbedelkaas xalka u arkeynay madaxweyne xasan sheekh baa ku guuleystay waa u hambalyeynay haddaan la shaqeynayna waxaan niri weli cirbadii kululeysadeed waa wadanaaye ra'iisul wasaaraha inaan helno iyadana ma suuroobin oo madaxweynaha saan go'aanka iska leh ayadana waxaan niri xalaa caleeg horaa looga socdo marka baashaasi saasay wax u dhaceen mas'uuliyadda dad baa haya madaxweynaha loo doortay asaguna ra'iisul wasaaraha magacaabay waa u hambalyeynayna shaqada wadaan leenahay wixii xaq u leenahay waa naqaanaa waa raadsanaynaa cidna marti ugama nihin wixii qaldan waa sheegaynaa waxaan leenahay waxaas waa laga fiican yahay farmaajo wax kale kuma diidaneen oo la iskuma diidaneen madaxweynaha farmaajo simbali aragtiyo siyaasadeed lagu kala aragti duwanaa haddii aragtiyo siyaasadeed lagu kala aragti duwanaado imaadaan waa tilmaameynaa ya marka wixii aan madaxweyne farmaajo ka diidnay yaanu lagu dayinaan leenahay marka Jubbaland iyo Puntland team bay ahaayeen wada shaqeynaya doorashada waa socdeen hadda marka Jubbaland ra'iisul wasaarihi haya madaxweyne Axmed isaga la rabo inuu ka odayeeyo oo state-kii annaga roolkeena shaqo badan noo taala annaga wixii aan Soomaaliya hadda inaan ku mashquulno federaal dhiskiisa dambe nooma yaalaba runtii annaga federaal dambe ku mashquulayno iyo toosin dambe geedka timirka fariisanna shaqada qabsan